السلام عليكم soo dhawaada saaxiibayaal jimco wanaagsan meel walba waa dunida dacalada ka joogtaan maanta waxaan kula wadaagi doonaa mid kamid ah hogaamiyaasha ugu khatarta badnaa ee soo maray dunidan waa hogaamiyaasha ugu taxtikada badnaa xagga dagaalka waa hogaamiye xirfadiisu ahayd dhagarta cadawgiisa waa hogaamiye hal maalin gacantiisa ay ku jabtay 9 seefo si marba cadawgiisa uu guriyay madaxyada cadawgiisa saa u jafay waa hogaamiye intii uu islaamka nacba u geystay xanuun fara badan laakiin markii uu islaamay qulubta muslimiinta ku reebay jacayl fara badan oo la jeclaan doono ilaa qiyaam saaca oo lagana sheekeyn doono lagana warrami doono dagaaladii u galay oo anagaba maanta 1446 sano kadib aynu ka taariikhooyno taariikhiisi wanaagsanaa ee baaldaaba dunida ka galay dabada wada waa hogaamiye markii uu soo islaamayay oo u dhoola cadeeyay rasuulka Allah sallallahu alayhi wasallam waxaan u malaynayaa inta dabadeed inaad garatay ninka weyn ee aynu ka warrami doono maanta waa Khalid bin Walid soo dhawaada saaxiibayaal haddii aad nagu cusubtahay halkani waa taariikhi show mar walba waxaynu soo gelinaa muuqaallo ku saabsan taariikhyahanadii dagaaladii muslimiintu ay galeen oo ay la galeen dunida inteeda kale ama cadawgoodii ay la galeen iyo siirada dadkii oo wanaagsanaa ayaanu halkan mar walba kusoo gudbinaa soo dhawow janaalku waa cusub yahay taageer waan u baahannahay taageeradaada iyo laag iyo shaar inaad ku qabato haddaba daawade colaad fara badan oo kala dhexaysay rasuulkii asxaabtiisa yaa islahaa waxaa islaami doona Khalid bin Walid laakiin qulubtu waxay u dhaxaysaa laba farood oo alle dhankii doona ayuuna alle u rogaya Khalid soo islaam ugu dambeyn hadaba daawade Khalid wuxuu ku warbaaray yaraantiisii dirta colaada ilaa uu kaga weynaado kana noqdo hogaamiye ciidan wuxuu ahaa nin balaayo ku ah qorsheynta dagaalka ilaa kuwa hareerihiisa ay joogay arkeen inuu ninkani uu yahay ninaan tartan aan ciidano kula galaynin qorsheynta dagaalka hadaba daawade Khalid wuxuu ahaa nin dagaalama gaashaan la'aan kuna dagaalama laba seefood oo cidii u soo dhawaataba laba seefood ayuu kaga shaqeynay daawade Khalid wuxuu ahaa ninka ay taariikhdu u diiwaan gelisay inuu yahay hogaamiyaha kaliya ee aan weligii goob dagaal laga adkaan maalintii uu dagaalyahan noqday ilaa uu ka geeriyooday uu ahaa hogaamiyaha kaliya aan weligii goob dagaal laga adkaan waa hogaamiyaha uu ku magacaabay rasuulka Allah seefti ilaahay galkeena ka saaray oo uu ku salladay mushrikiinta iyo saliibiyiinta hadaba daawada Khalid rag badan ayaa ku fidmooday sababtiisa oo waxay yiraahdeen Khalid dagaal lagama adkaan haddaad rabto inaad dagaal gasho ma aadan guul dareysan weliga Khalid iskala soo waana mid kamid ah sababihii uu casilay amiirkii muslimiinta xilligaas Umar ibn Khattab radiyallahu anhu asagoo ka cabsanayo inay dadku nasrigaba ay u qaataan inuu Khalid nasriga wato oo allaba uusan ahayn midka asagoo muslimiinta u heelanayo muslimiintu ay sababtiisa ay ku guuleysanayaan Abu Bakar ayaa la weydiiyay miyadan casilaynin Khalid kadibna wuxuu yiri magalkeeda ayaan ku celinayaa seef ilaahay galkeeda ka saaray oo mushrikiinta iyo saliibiyiinta ilaahay ku salladay maya wallahi ma sameeynayo weligayna ma casilayo ayuu yiri Abu Bakar radiyallahu anhu Khalid wuxuu ahaa markii uu soo ifbaxayay nuurka islaamka mid dhaxaada wuxuuna ahaa ragga ugu geesisan carabta oo idil uu islaami lahaa Khalid haddii aysan hareerihiisa joogi lahayn raggii waaweynaa ee abihiiba uu ka mid ahaa Abu Jahl Umayy ibn Khalaf Safwan ibn Umayya raggii waaweynaa ee Quraysh haddii raggaasi saameyn ku lahaan lahayn Khalid uu islaami lahaa sababtoo ah wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah oo mid dhaxaada markii nuurka islaamka uu soo ifbaxay laakiin raggani ayaa waxay ku yeesheen saameyn waaweyn Khalid wuxuu ka dhashay mid kamid ah saddexdii qabiil ee tartanka si gooniya uga dhaxay kuwaasoo kala ahaa Banu Hashim oo ahaa qabiilkii nabiga iyo Banu Umayya oo ahaa ugaasiyadii Quraysheed iyo Bani Makhzum oo ah qabiilka Khalid ka soo jeeda taasoo caanka ku ahayd fardafuulka ka ugu horeysa anigu dhashaba waxa loo dhiibayaa seefta iyo warmaha iyo fardaha ayaa lagu tababarayaa shaqo kale ma aanay lahayn shaqadu waxay ahayd inay tababartaan oo ay dagaalamaan si ay mustaqbalka ay u noqdaan dagaalyahano la yaqaan oo laga sheekeeyo carabo idin dhexdooda ay ka sheekayso hadaba daawade Khalid muslimiinta bilowgii wuxuu la galay dagaalo aad u fara badan dhammaan dagaaladii Quraysh iyo rasuulka dhexmarayna uu ka qayb qaatay marka laga reebo dagaalkii Badr kaasi oo safar ugu maqnaa dhanka Shaam laakiin markii la gaaray dagaalkii Uhud Quraysh Khalid waxay u dhiibtay ciidanka dhankiisa midig ay u dhiibtay halka ay bidix gaareen u dhiibeen Ikram ibn Abi Jahl markii muslimiintu dagaalkii u bilowday dagaalkii Uhud muslimiintu bilowgii waa ay guuleysteen laakiin markii ay arkeen kontakeenin ee nabigu saaray buurta markii arkeen muslimiinta oo guuleystay qanimadii oo la ururinayo in badan oo kamidina ay ka soo degeen buurtii uu nabigu yiri ha ka soo digina buurta hatta haddii aad aragtaan anagoo haaduna cunayso oo intana la ka guuleystay meydka iyaga ay haadu cunayso haddaad aragtaan ha soo digina ayuu ku yiri rasuulku asxaabtaas laakiin amarkii way caasiyeen oo way khilaafeen markii arkeen muslimiintii oo guuleystay oo qanimada ururinaya ay yiraahdeen maxaan meesha ka saaranahay marba haddii ay muslimiintii guuleysteen Khalid markaa kor ayuu ka daawanayay wuxuuna ogaa Khalid wuxuu nacab qariga dagaalka ku ah inaanay muslimiinta laga guuleysan karin ilaa in laga dhabar jabiyo meesha buurta yarta mooyee markii muslimiintii nimankii nabigu meesha saaray ka soo degeen oo ay dagaalkii galeen oo ay halkay qaniimo aruuris gareen ayuu Khalid soo dhaqaaqay markaas ayuu cagta mariyay 12 saxaabi oo ku soo hartay buurtii nabigu saaray cagta ayuu soo mariyay markaas ayuu muslimiinta dhabarka kaga yimid Khalid iyo saaxiibadii maalinta
waxay ka dileen muslimiinta 70 saxaabi oo qaali ahaa ay halkaas muslimiinta kaga shahiiday maalintaas. Intaa waxay ka dambeeyay dagaalkii Khandaq. Khalid wuxuu ka mid ahaa ragga ugu firfircoon ee dagaalka ku jiray ayuu ahaa maalintii Khandaq dagaalkii ee Quraysh ay ku hareereeyeen magaalada Madiina ee Ahzaab Ilaahay ku magacaabay ee isbahaysiga badan ee Qatafaan iyo qabaa'ilka faraha badnaa ee ku soo duulay magaalada Madiina. Khalid wuxuu ka mid ahaa hogaamiyaha Quraysh ee ugu firfircoon dagaalkaasi ay ka qayb qaatay ayuu ka mid ahaa. Haddaba daawade intaa waxay ka dambeeyay aynu hadalka u dayna Khalid asaga qudhiisu ay nooga warramo xikaayadiisi iyo asaga ayaa ku haboon inuu ka sheekeeyo qisadiisa. Waxa uu yiri Khalid markii la gaaray sulhul Hudaybiya ee uu nabigu yimiday asagoo doonaya inuu umraysto Kacbadan oo ku tawaafo uu doonayo, anigu markaas waxaan ahaa hogaamiyaha ciidanka Quraysh. Ciidankii ayaan la baxay markii aan maqlay Maxamed oo ciidan wato ayaa yimiday oo doonayay inuu xaramka soo galo. Ciidankii ayaa la baxay, duurka ayaana la aaday magaalada si aan uga hortago. Markii duurka aan ku jirnay waxaan eriyay markii ay salaada duhur dukadaan ayaan weeraraya ayagoo salaada ku jiro ayaana cagta marinaya dhammaanna waan ka takhalusaya. waan soo diyaar garoobay ciidankayga ayaan soo watay duhurkii markii la gaaray oo aan isleeyahay ku bilow ayaan ayagoo dukanaya arkay markaasaan eri bal hadda weerar haddana naftayda ayaa ila dagaasha oo haddana waan dhaqaaqi waaya haddana waan isa soo celiyaa mar labaad baan isa soo canaanta haddana waan soo aadaa haddana waxba iima suurta galaan sidaas ayaana ku jiray ilaa waqtigii uu idhaafay oo waqtigii iga dhamaaday haddana dib ayaan isaga laabtay waxaan iri markii la gaaray casarka ayaad soo weeraraysaa oo haddana aad ka takhalusaysaa casarkii markii la gaaray ayaa waxaan u imiday rasuulka oo asxaabtiisa dujinaya salaadii cabsida oo qaybna salaad ayay ku jirtaa qaybna dagaal ayay u diyaarsan tahay markaas naftayda waxaan ku iri talow yaa u warramay inaad soo weerari doonto yaa u sheegay weerar ayaan isiri haddana naftaydii ayaa isla hadal igu bilowday haddana mar labaad baan isa soo canaantaa haddana waxba ma dhaqaajin karo wax walbo aan doono inaan sameeyo ma sameyn karayo oo waxba iga hortaagan oo naftaydii ayaa dagaal igula jirto arrinkaas intaas markaan arkay dhaqaaji waayay waxaan ogaaday inay wax jiraan rasuulkuna uu macsuum yahay aan cidina ku dhawaan karin cid ku dhici kartaana aanay jirin aniguna aan waxba aanan sameyn karin si lamida sidii aan dareenkii aan dareemay maalintii Ahzaab sababtoo ah Ahzaab waan soo jabnay anagoon waxba ciidanna jawiyaha nala dagaalamo oo jirin ayaan soo jabnay sidaas lamida ayaan maanta dareemay inaan waxba ku sameyn karin rasuulka kadibna waxa dhacay heshiiskii Quraysh iyo nabigu ay gaareen oo sulhul Hudaybiya inay muslimiintu iyo nabigu xilliga sanadka ay laabtaan sanadka dambana ay Kacbada yimaadaan Quraysh ay Kacbada ka baxdo kadibna ayagu ay ku tawaafaan dagaalkii markii uu dhamaaday oo heshiis la qaatay aniga waxa uu yiri Khalid waa ay dhamaatay shaqadeedii maadaama shaqadeedii ay dagaal ahayd dagaalkiina heshiis la qaatay 10 sano anigu hubkii waan iska dhigay kadibna isla hadal ayaan bilaabay talow maxaan sameeyaa maxaan qabtaa magaaladeedii miyaan iska joogaa miyaan baxaaho Najaashi iyo halkaas miyaan qabtaa haddana Najaashi ma aadi karo oo waxa joogo saxaabadii u hijrootay Najaashi ee bilowgii islaamka ba baxday ayaa halka jirta haddana waxa yiri macquul ma inaan Maxamed ka carro asxaabtiisa inaan halka ugu tago haddana waxa sariyay ka waran haddaad halka ay heeraq la qabato oo nimanka caajimta ay reer Yurub aad markaas haddana waa ceeb kale ugu dambeyn waxaan go'aan ku gaaray inaan iska joogo magaaladeedii Makka waxaan Makka joogaba sanadii xigtay ayaa waxa yimiday muslimiintii ayagoo umradii u socda waatii ballantu ahaa sanadkii hore in sanadka dambe ay yimaadaan deedna waa yimaadeen anigu maalinta magaalada waan ka maqnaa oo duurka ayaan aad muslimiintana waxa ku jiray walaalkay Waliid ibn Waliid ayaa ku jiray magaalada ay yimaadeen way tawaafeen kadibna Waliid wuu iraadiyay wuu iwaay Waliid fariin ayuu u raabay fariintaas oo ah mid saameyn aniga igu raabtay fariinta Waliid waxay leedahay rasuulka Allah ayaa ka weydiiyay Khalid waxa geed aaday rasuulka ayaa ka weydiiyay oo yiri aaw Khalid kadibna anigu waxaan ku iri Ilaahay ayaa keenay rasuulka Allah kadibna rasuulku wuxuu ugu yiri Khalid in aqli badan boo qaay aqligiisa kalena waa inuu islaamnimada ku gartaa oo islaama haddii uu islaami lahaa oo khibradiisa dagaal iyo awoodiisa muslimiinta u yeeli lahaa asaga ay khayr u ahaan lahayd muslimiintana way anfici lahayd annaguna kuwa asaga la midka waanu ka hormarin lahaynay Khalid fariinta markii ay soo gaartay walaalkii soo diray aad bay saameysay maalintii idilna waan isla hadlay anoo maalintii dhan isla hadlay ayaan habeenkii seexday habeenkii markii aan seexday waxa aan ku riyooday riyo cajiib qisada Khalid ayaa iskale daawaday la socod Khalid waxa uu yiri habeenkii markii aan seexday waxaan ku riyooday anigoo ka baxaya dhul cariiri ah oo abaar oo qallayla oo jaafa una baxaya dhul waasaca oo cagaar ah u baxaya ayaan ku riyooday habeenkii subaxdii markaan soo kacay ayaan eriyay wallahi riyadani waa riyo dhab xaqiiqo ah kadibna waxaan go'aansaday inaan islaamo oo rasuulka aan raaco deedna waan soo baxay waxaan u imiday nin la yiraahdo Safwan ibn Umayya oo kamid ahaa ragga waaweyn ee Quraysh waxaan ku yiri Safwan ku dhawaad 20 sano ayaan la dagaalamaynaa Maxamed wuuna guuleysanaya maalinta ka dambaysa arrintiisu way sii baahaysaa arrintiisuna way sii baahaysaa oo waa taas waxba aan laga qaban karin qabaa'ilka dhan ay islaamayaan arrintiisu soo uma muuqato in xaq tahay ka waraniyo haddii aan raacno Safwan aad ayuu u carooday wuxuu yiri wallahi tan ku dhaartay dhagaxiisi sanamkiisa ayuu ku dhaartay wuxuu yiri wallahi ayaan ku dhaartay haddaani Makka ku soo harin ilaa aniga mooyaan inaan Maxamed raacin warba ninka aabahay dilay
hantidiidio idilna aan ku bixiyay dagaalkiisa ayaad ilaahay raac. Khaalid wuxuu yiri markii aan arkay go'aankiisa waan isaga tagay, waxaan u tagay Cikrama ibn Abi Jahl sidii oo kale ayaan ku iri. asna intii Abu Sufyaan intii uu igu yiri Safwaan in ka daran ayuu asna igu jawaabay. Kadibna waxaan iri waa laba nin oo aabayaashood lagu dilay dagaalkii Badar oo ciil qabo, marka waan cudur daaray waan isaga tagay. Kadibna waan isaga tagay, go'aan ayaan gaaray inaan kaligay baxo. waan diyaar garoobay. markii aan diyaar garoobay ayaa waxaan la kulmay nin la yiraahdo Uthman ibn Talha. kadibna waxaan ku yiri Uthman oo ka waran haddii aan Maxamed raacno. Uthman waaba nin diyaar garoobay oo diyaara oo hashiisii wixii sabay zaadkiisiiba diyaarsaday. kadibna wuxuu yiri wallahi saadkaygi waa kana, saadidii waa tana, hashaydina waa tana, arinta ayaaban go'aansaday waa socdaa. anigii Uthman baa soo raacnay magaaladii Maka ayaan ka soo baxnay, wadadii Madiina ayaan qabanay. marka magaalada aan ka soo baxnay oo banaanka marayno ayaa waxaan aragnay nin kamida hogaamiyaasha Quraysh oo aad qaali noogu ahaa oo la dhihi jiray Amr ibn Aas. Amr ibn Aas baan la kulanay, kadibna ismarxabayn kadib waan iswareysanay. Amr waxaan ku yiri aniga Khaalida waxaan ku yiri war Amr xageed u socotaa? soo adigii cararay halka iyo Najaashi qabtay oo tagay. Amr wuxuu kamid ahaa markii heshiiska dhacay Sulhul Hudaybiyah raggii cararay ee baxay ee ka hijroodaba isaga tagayba Maka iyo warkeeda ee aaday halka iyo Najaashi ayuu ahaa. wuxuu yiri ha waa anigii waan soo laabtay. marka waxaan niri xagee u socotaa hadda, maxaad damacsantaa hadda? wuxuu ni aqli badan buu ahaa Amr ibn Aas. wuxuu ku jawaabay ilaa aad adinku ii sheegtaan halka u socotaan idima sheegay anigu. kadibna waxaan u sheegay inaan u socono Maxamed oo aan doonayno inaan islaamno. intaas la mid ah wuxuu ku jawaabay aniguna halka ayaan u socdaa waan islaami rabaa. kadibna waxaan ka wareysanay safarkiisii Najaashi. wuxuu yiri maraan Najaashi la joogo ayaa waxa u yimiday fariin sida ka socda Maxamed oo Najaashi diinta ugu yeeray. waa sanad Amr Rusul, sanadkii Rususha la diray oo nabigu Siraqle u diray oo reer Faris loo diray oo Najaashi loo diray. xilligaas uu ka hadlaya Amr ibn Aas. wuxuu yiri markaan saa Najaashi u garaba fariin sida ayaa taagan. kadib islaamnimada ayuu u soo bandhigay Najaashi. kadibna aad baan u xanaaqay, waxaana ku iri Najaashi idaa ninka aan qoorta ka jaray oo aan dilay. Najaashi gacantii ka qabtay, gooni ayuu ii bixiyay. kadibna islaamnimada ayuu ii sharxay, gacantiisa ayaan ku islaamay. haddana waxaan doonayaa inaan rasuulka aado oo sidaa aan ku islaamo. dadna waan is soo raacnay magaalada Madiina. markaan ku soo dhawaanay ayaan dharkii iska bedelnay, dhar nadiif aanu xiranay. kadibna sidaa ayaanu ku soo baxnay. kadib walaalkay ayaa wuxuu maqlay, Waliid ibn Waliid baa wuxuu maqlay inaan soo socdo oo iga hor yimiday soo bishaaraysanaya. kadibna rasuulka ayuu yiri u gal rasuulka alla masaajidka ayuu joogaa wuuna ku sugayaa, warkaagana wuu maqlay. sidii ayaan ugu galay rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo masaajidka jooga. markuu arkana waa uu dhoola cadeeyay rasuulka alla, wuu ii dhoola cadeeyay markii uu arkay. waana islaamay oo ashahaatika ayaa halkaasi kaga dhawaaqay. ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ashhadu annaka rasuulullah. rasuulku markaan ashahaatay kadib wuxuu yiri ilaahay baa mahadsan ku soo hanuuniyay. waxaan kugu ogaa caqli, waxaan rajaynayaa caqligaagu inuusan kugu hogaamin ilaa khayr mooyaan. kadibna waxaan yiri rasuul allow in badan baan kula colaytamay, waan idin dhibay, ilaahay idin dhaaf ii weydiin maadaama aan in badan kula dagaalamay. kadibna rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu ugu jawaabay Khaalid oo ku yiri miyaadan ogeyn Khaalidow أن الإسلام يجب ما قبله. إسلامك وحي أستيقظ كوري إنه ترتريو ميادن أوجيب. كدبنا وحن كوري ومع ذلك أيضا أرنتا سجلت هذا الرسول الله يدعي ودمداف اللي يويدي. كدبنا رسولك صلى الله عليه وسلم وحور إلهي وخالد ودمداف. أنت بدأت وحنا آذي أبو بكر أيان آذي سي أنا وش يقول ريادي أن كل رياضي مركي أن جوجي مجال ذمك. صوت أبو بكر وحوها مثل ريوين كفسرة وكفي عن ريوين كأيوها. وأنا تجي وحن وش يجي ريادي أن أركي مجال ذمك مركي أن جوجي. oo ku saabsaneed inaan meel cariiri ka baxayo dhul qaleel aan ka baxayo aan u baxayo dhul waasac. wuxuu igu fasiray islaamideyda oo waxa uu yiri dhulka cariiriga aad ka baxayso iyo meesha qaleelka waxay ahayd shirkigii iyo asnaamtii balaayadii aad caabudaysay. halka waasac ee cagaarka ah doogga aad u baxdana waa islaamnimada aad soo gashay. sidaas ayuuna ku soo islaamay hogaamiyihii weynaa. intaa kadibna Khaalid wuxuu noqday nin ustuuro ah oo taariikhda galay oo muslimiinta u dagaalamay, diinta Ilaahay u dagaalamay, jirkiisana uu gaaray heer hal taaka in la eg aanay ka banaaneen Khaalid ilaa waxa ku tiilay seef ama waran ama filaar ayaa ku tiilay. ugu dambeyn Khaalid halkaas ayuu ku soo islaamay. ugu dambeynna wuxuu la dagaalamay oo afka ciida u daray labada imbiratoorid ee ugu weynaa dunida waqtigaas awood ahaan oo Faris iyo Room ayuu afka ciida u daray oo dadkii saxaabadii Ilaahay gacmahooda ku burburiyay ayuu kamid ahaa. in badan baynu ka warrami doonaa Khaalid radiyallahu anhu Allah ka raal noqday dagaaladii uu galay mid kasto kamid insha Allah ta'ala aan si gooni ugu warrami doonaa. daawade aad baad u mahadsantahay. haddii halkan soo gaartay waxaan ka codsanayaa inaad channelka subscribe saarto, share iyo like aad ku taabato. aad baad u mahadsantahay. la soco muuqaalka xigo. mahadsanid.